bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullah soo dhawaada asxaabtayda qaaliga kulan janankayga oo maabi bokor ilaahay baa mahad iskale haddaan idiin soo noqday anigoo caafimaad qaba dhammaantiin waxaa idiin rajaynaysaa aniguba oo caafimaad qaba inaad wada caafimaad qabtiin asxaabay soo dhawaada maanta waxaan samaysanaynaa qadada bariis daawasho wanaagsan kana faa'iidaysta maanta qadada ayaan idinla wadaagayaa maalmahan waan yar mashquulay cafan asxaabtii hore la joogtay waan ku faraxsanahay la joogitaankiina muuqaalka leegta ii saara si sheer gareeya asxaabtaygu cusub qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada meel idinka jecel walaashiin joogta muuqaalka subscribe-ka ii saara jananka hadduu kaasoo horbaxo aad iyo aad baan idin jeclahay daawasho wanaagsan hadda halkan waxaan dabka soo saaray distid waa faaruq saa u aragtiinba waxaan ku shubanaynaa hilibkii halkan waxaa inoo yaala barbarooniga saddexda nooc halkan waxaa inoogu jirta basal halkan waxaa inoogu jira barbarooniga saddexda nooc iyo toon kana waxa weeyaan caleentii iyo xawaashkii bariiskiina waa kan qadada maanta intaas baan ku tuuranaynaa daawasho wanaagsan kana faa'iidaysta hadii jeeraale hilibka markuu biyuhu kaaga qalalaan uu qalay noqdo ayaa fiican inaad ku dartid wixii kale inaad ku daraysid saliidda basasha hilibka oo biyale haddaa basasha ku dartid wuxuu kaa xumaanayaa ilama fiicna aniga kuley waxaa kaa xumaanayaa basasha ma kuu casaanayso waxay kaa noqonaysaa basal cadcado dee biyale ayay ka ahaanaysaa haddii aad ku dartid iyadoo hilibka uu leeyahay biyo haddii laakiin aad ku dartid hilibka adigoo sidan biyaha uga qalajiyey waxay kuu noqonaysaa way kuu shiilmayaan labaduba cuntaday shiilimaadka uga badan tahay ayay ka macaan tahay la soco waxaan ku darnay barbarooniga saddexda kale barbaroonigu aad buu u fiican yahay markasta aniga cuntada waan ku daraa dadka qaar baa maca laakiin waan jeclahay wuuna ku anfacaya haddii aad ku darsatid cunada barbarooniga caleentaan idinku sheegay bariiska lagu daro waa loogu dambaysiyaa markaad biyaha ku shubtid ayaad caleenta lagu daraa tan waxwaash duuduubkii adigu marka biyaha ku shubtid baa lagu daraa caleenta haddii kale caleentu hadday kaaga shiilanto geedgeed buu kaaga dhadhan markuu bislaado haddaad dhaqso uga saari weydana sidoo kale geedgeed buu dhadhan marka waa kaasaa caleentu waa inay marka biyaha ku shubtid aa ku ridid rajaynaya inuu si qurux badan inoogu soo bixi doono insha allah waatana caleenteeni waxaa lagu ridaa markaad hawsha dhan u dhamaysid laakiin waxbaan ka ilaawayna ila socotiin asxaabe cusba ama milix waaban ka ilaawayba maanta ilaahay markiisa bariis bilaa milix ayaa cuni lahaa ilmuhuba way yaabi lahaayeen waa ku daray laakiin imika alxamdulillah kaas لكن بriskeeni waxoogaa biyo uu leeyahay waan yar sugeynaa in yar waxaan ka saaraynaa hadda caleenta waa inay markuu saa u bislaado aa ka saartid haddii kale way kaaga dheecaami wuxuu noqonay bariis geedgeedu dhandhame markiisa marka kalena carufay u sameysaa way fiican tahay وكاسة وصو ديار سنينا وكنا ما شاء الله تبارك الله سحنينا يعني نوغو سو دياريي سيدا فودودا ayaa ku samaysan kartaa bariis ku dhex kariska aad iyo aad baan idin salaamaya muuqaalka leegta saara allah macagintan muuqaalkan muuqaal xigeys ku soo noqon doono waa hodan oo idin leh
allah macag.